السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha jaaliyadda ku nool Germany. waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin hambalyada iyo bogaadinta aad ii hambaliyeynaysaan iyo bogaadinaysaan waa ku mahadsantihiin jacaylka aad Soomaaliya la jeceshihiin dimuqraadiyadda iyo si nabad ah in talada dalka la isugu dhiibo aad raalli ka tihiin aad ku faraxsantihiin waa ka mahadcelinayaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa fursadahan oo kale inay noo bataan dimuqraadiyaddu ay dhaqankeena ka mid noqoto xukunka inaan la isku dhejinin si sahlan loo dhiibo. Soomaaliya waxay hadda ku caanamaashay waa arrintaas. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa 2012 si nabada xukunka igu wareejiyey. horaantii 2017 si nabada ayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu wareejiyey. isaguna 15 May ayuu si nabada haddana anugu markaan doorashada ugu guuleystay igu wareejiyey. waa dhaqan bilowday waana socon doonaa ilaa idinkiis sidoo u sii xoogaysan lahaa dhaqanka noocaasa oo u sii adkaan lahaa oo haddii dib u dhacyo dahdah xaggay inta uu nagu jiro anuga bixileenna waa ka shaqayn doonaa ilaa idinkiis. dalkan waa dal dimuqraadi ah. dowladda aniga aan madaxda ka ahay ee aad ii doorateen muhiimadeeda koowaad ee ugu horeysa waa amniga, teedaba labaadna waa amniga, teeda saddexaadna waa amniga. markaan amni helno wax walba markaasay ka dambeeyaan. dib u soo kabashada dhaqaalaha, dhismaha infrastructureka, horumarinta xuquuqda aadanaha, maxaan ku irahdaye horumarinta dimuqraadiyadda, soo celinta karaamada, diblomaasiyadeena xoogeysatahay, wax walba markaasay ka dambeeyaan. haddii aanan amni dalka aanan u helin way nagu adkaanay inaan wax fiican ee aan mudannahay oo aan heli karno inaan gaarno. sidaas daraaddeed amnigu waa noo muhiim waana ka shaqayn doonaa haddii alla yiraah. waadna nagu kaalmay doontaan sida aad marar horeba aad dalka u kaalmaysaan ama aniga intaan madaxda ka ahaa ama raggii kaloo ila midkaa Soomaaliya intay madaxda ka ahaayeen. taas waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo. hambalyada iyo bogaadinta iyo farxaddana waa ku mahadsantihiin. farintayda labaad oo caawa aan rabo inaan idiin gudbo xitaa walaalayaal dalkiina Soomaaliya oo aniga aad madaxtinimadiisa laygu aamino idinku igu aaminteen oo aad ii hambalyeynaysaan. shacabkiisu waa dhiban yahay. dalka abaaraha ka jira waxyaabo badan oo dhibaataa oo na haysto oo aan annaga sabab u nahay oon gacmeena ku abuuranaa jira. laakiin abaaraha gacmeena kuma abuuranin, qadar rabbiyay ku yimaadeen. isbedelka cimiladaa keenay oo aanan annagu mas-uul ka ahayn. laakiin maanta mushkiladda hadda annagayna haysataa. dad badanoo Soomaaliyeed oo xoola dhaqato bas aha ayaa xoolihii waayey, dhulkooduna aan dhul beereed ahayn. kuwo badan oo beeraley ahaana roobabkiina way ka baaqdeen, webiyadiina way qalladeen, ma tacban karaan beerahoodii. kuwo labadaba isku ahaana kaba sii dara. sidaas daraaddeed dadkeennu waa baahan yihiin. abaarta geeska Afrika oo dhan bay ka dhacday, laakiin annagu waa u nugulnahay. waxaan ugu nugulnahay duruufeena siyaasadeed, nugeylka dowladdeena ay nugushahay ayaa sabab u ah. waxaan idinka codsanayaa fariinteyda haddaad dhegaysataan inaad qalbiga ku qabatid inuu jiro cunug Soomaaliyeed oo caawa aan cashaynin, saake aan quraacanin, maanta duurka aan qadaynin, berrina aan waxba meel u oolin. waxaa qalbiga ku haydaa hooyada cunugaas dhashay oo ayadana sidaas si ka daran ah. hooyada cunugaa dhashay iyo aabbihii dhalay oo arkaya cunugoodii oo sii tacbaanaya oo sii dhimanaya waxbana aanay u qaban karin. rajo xumada iyo xanuunka waalidkaas ay qabi karaan qiyaas haddaa waalid tahay. haddaad walaal tahay qiyaas gabadha yartaa iyo wiilka yarkaa ee kula dhashay hadday duruufahaas ku sugan yihiin.
walaalayaal waxaa idinka codsanayaa, idinku baaqayaa, idinku bogaadinayaa inaad dadkaas Soomaaliyeed ee duruufaha ay haystaan aad taageertaan, garab istaagtaan, ilaaha wax badbaadiya aad badbaadisaan. $1 wax weyn oo ka tara Soomaaliya, ama €1 wax weyn oo ka tara Soomaaliya.